بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى واعلموا يا عباد الله، واعلموا أنكم في هذه الدنيا في دار ممر وما زلتم في سفر، وأن إلى ربكم المستقر، وأنها تمر بكم مواسم عظيمة تضاعف فيها الحسنات وتكفر فيها السيئات. ومن هذه المواسم عباد الله، ومن هذه المواسم شهر ذي الحجة، فقد جمع الله سبحانه وتعالى فيه من الفضائل ما لا يخفى إلا على أهل الغفلة والإعراض. ففي أول العشر المبارك التي نوى الله بها في كتابه الكريم، حيث قال سبحانه وتعالى: والفجر وليال عشر، أقسم الله سبحانه وتعالى فإن المراد بها عشر ذي الحجة. أقسم الله سبحانه وتعالى بها تعظيما لشأنها وتنبيها على فضلها. وروى البخاري من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعمل صالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فدل هذا الحديث على أن العمل في هذه الأيام العشر أحب إلى الله من العمل في أيام الدنيا من غير استثناء، وأنه أفضل من الجهاد في سبيل الله إلا جهادا واحدا. وقد شرع الله سبحانه وتعالى لعباده في هذه الأيام لعباده صيام هذه الأيام ما عدا الأيام العاشر، وهو يوم النحر. ومما شرع يا عباد الله في هذه الأيام الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، ولا سيما التكبير. قال الله سبحانه وتعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات، وهي أيام العشر عند جمهور العلماء. وأما أيام المعدودات فهي أيام التشريق، فيستحب الاستكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه العشر المبارك من التهليل والتكبير والتحميد. فإنه لما كان ليس كل واحد يقدر على الحج جعل مواسم العشر مشتركا بين الحجاج وغيرهم، فمن لم يقدر على الحج
فإنه يقدر أن يعمل في العشر عملا صالحا. عباد الله، ولليال إلهي سبحانه وتعالى يا مهله الله سبحانه وتعالى إلا سوى فجينا نسوق لبيت كيسا خطبتنا waxay ku saabsan tahay ayaamahan dilxija, tobanka dilxija ugu horeeya fadliga marka ay leeyihiin, fadliga ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku sheegay, rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam uu ku sheegay. walaalayaal waxaynu joognaa waxa weeyaan waa adduunyo. adduunyadanna waxa weeyaan qofku wuxuu ku marayaa ama uu joogayaa waa saacado yar weeye, muddo yar ayuu joogayaa qof. waxaynu ku sugannahay safar, weli kamaynaan zuulin inaynu ku sugannahay markaa safar. waxaana ilaahay subxaanahu wa tacaala wax kasta waxa u laaban doonaa xagga ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa loo celin doonaa. walaalayaal, ayaamahan ugu horeeya ee bisha dilxija, tobanka maalmood ugu horeeya, waxay ka mid yihiin mawaasimta aad iyo aad u weyn ee la rabo qofka muslimkii inuu ka faa'iidaysto. waa ayaamo ilaahay subxaanahu wa tacaala xasanaadka qofka u labanlaabaayo. qofkii la yimaado camal wanaagsan ayaamahan dhexdeeda, tobanka ugu horeeya bisha dilxija, ilaahay subxaanahu wa tacaala qofka camalka waa u labanlaabaya, waa u badinayaa. ayaamahaasaynu ku dhex jirnaa. sayi-aadkiisa iyo dembigiisa iyo xumaantiisana ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ka dhaafayaa qofkii camal wanaagsan la yimaada. mawaasimka waxaa ka mid a walaalayaal bishan dilxija tobankeeda hore waxay leeyihiin markaa ayaamahaasi fadli aad iyo aad u badan bay leeyihiin. sida ilaahay subxaanahu wa tacaala bini-aadanka rususha uga dhex doortay ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaamahan uga dhex doortay ayaamaha fadliga iyo wanaagay leeyihiin. ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu ku tilmaamay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku sheegay fadaa'il aad iyo aad u badan, fadli aad u badan in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu noogu sheegay bishan iyadaa weliba tobanka hore dilxija ah. qofkii la yimaado daacaadka ee daacada badiya, waayo daacada iyo fadliga ay leedahay qof ilaahay ka baqaaya oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ku xidhan marnaba kama qarsoono. fadliga iyo wanaagay leedahay tobankaa ugu horeeya dilxija, fadliga ay leeyihiin, wanaagga ay leeyihiin kama qarsoono. qof ilaahay garanaya, rabbigii abuuray garanaya oo caabudaya, marnaba kama qarsoono. laakiin qofkaan ilaahay subxaanahu wa tacaala aan ku xidhnayn, aakhiradiisana aan xusuusnayn, kama warhayo, mana ogaan karo ayaamahan ugu horeeya dilxijo fadligay leeyihiin, wanaagay leeyihiin. saa daraaddeed waa toban markaa aad iyo aad markaa u barakaysan. tobankaa maalmood ugu horeeya waa toban aad iyo aad u barakaysan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka uu ku sheegay, oo rabbi subxaanahu wa tacaala uu ku dhaartayba. ilaahay baa subxaanahu wa tacaala ku dhaartay. wuxuu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala waalfajr walayaalin cashri. ilaahay baa ku dhaartay subxaanahu wa tacaala. dhaarashada ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku dhaartay baa waxaa laga qaadanayaa qiimaha iyo fadliga ay leeyihiin ayaamaha ugu horreeya dilxija, maadaama allihii subxaanahu wa tacaala iska lahaa uu ku dhaartay. ilaahay wuxuu uhi waalfajr walayaalin cashri. walayaalin cashri waa tobankan ugu horreeya ee dilxija ayuu ilaahay ku dhaartay subxaanahu wa tacaala. tobanka ayuu ku dhaartay. aqsama allahu bihaa, ilaahay baa ku dhaartay. muxuuse ilaahay ugu dhaartay subxaanahu wa tacaala? sababta ilaahay ugu dhaartay waa maxay? tacdiiman lisha'nihaa. ilaahay wuxuu weyneeyey subxaanahu wa tacaala tobankaa maalmood
sha'nigooda iyo xaalkooda weynayn ilaahay subxaanahu wa tacaala uu weynaynaayo ayuu rabbi tabaaraka wa tacaala ugu dhaartay wa tanbiihan calaa fadlihaa ilaahay subxaanahu wa tacaala baraarujin addoommihiisa uu ku baraarujinaayo tobankaa maalmood ugu horreeya dilxija baraarujin uu ku baraarujinayo fadliga ay leeyihiin ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu dhaartay walaalayaal saasuu ilaahay tabaaraka wa tacaala ugu dhaartay imaamu albukhaari raximahu allahu tacaala baa wuxuu wariyey min xadiidi ibnu cabbaas radia allahu canhu xadiidka ibnu cabbaas uu warinaayo nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam maa min ayaamin acmalu saalixu fiiha axabu ila allah min hadihi alayaam maa min ayaamin ayaama ma jiraan buuhi ayaama ma ahaanin alcamalu saalix camal wanaagsan la qabto ayaamaha dhexdooda axabu ila allah ilaahay loogu jacayl badan yahay min haadihi alayaami ayaamaan iyaga camal la qabto oo qofka bini aadankii uu qabto oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu dhowaado yacni camal ka fadli badan ma jira ayaamaha qofku uu qabto ayaamahanan ku jirno ee loo yaqaano markaa dilxija saxaabadu radia allahu canhum su-aal bay nebiga weydiiyeen waxay yidhahdeen yaa rasuula allah wala ljihaadu fii sabiili illah jihaadna kama fadli badna miyaha nebigu wuxu uhi wala ljihaadu fii sabiili illah jihaadna kama fadli badno ayaamaha qofku camalka uu qabto jihaadna kama fadli badno jihaadna kama fadli badno buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu nebigu ka soo reebay hal nin ilaa nin isagu baxay nafsadiisa iyo maalkiisa huriyey oon waxba la soo noqon kaasuunbaa ka fadli badan nebiga calayhi salaatu wasalaam waa nin isagu waxa weeyaan nafsadiisi iyo maalkiisiiba ilaahay dartii u bixiyey oo waxa weeyaan haba yaraatee wax ka soo laabta ma jiro kaas mooyaane camal la qabto ka fadli badani ma jira buu nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiiska nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaynu ka qaadanaynaa oo xadiisku markaa yacni maaragtay uu noo bayaamiyey calaa anna alcamala fii hadihi alayaami alcashr camal la qabto waxaa ugu fadli badan maaragtay tobankaa maalmood camalka la qabto camal ka fadli badanuuna jirin ayuu xadiisku markaa uu noo caddeeyey waayo rabbi subxaanahu wa tacaala waaba ku dhaartayba mar hadduu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku dhaartayne waxaa laga qaadanayaa dhaarashada ilaahay uu ku dhaartay fadliga iyo wanaagay leeyihin tobankaa maalmood markaa qofka muslimka ah waxaa looga baahan yahay maalmaha iyagaa inuu maaragtay u ka faa'iidaysto uu kaga faa'iidaysto markaa wixii ilaahay subxaanahu wa tacaala raalli gelinaaya hadday noqoto sadaqo la bixiyo iyo dikri la akhriyo iyo cibaadada la badiyo sunankoo la badiyo soomkoo la badiyo yacni waxa weeyaan cibaado kasta mid alla madii kuu fududaata inaad la timaado tobankaa maalmood haddii aad soomi karayso inaad soonto waayo nebigeenna calayhi salaatu wasalaam xadiis baa uu ku sheegay uu ku tilmaamay halka maalmood oo tobankaa maalmood dilxijo ka mida halkii maalmood wuxuu u dhigmaa 1,000 maalmood oo ayaamaha kale ka mida 1,000 maalmood ba u dhigantaa waa halka maalmood oo ka mida tobankaa dilxija waxa u dhigantaa 1,000 maalmood yowmu carafana nebigu wuxuu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam iyadna inay u dhiganto 10,000 oo maalmood ayaamaha kale ka mida inay yowmu carafa u dhiganto nebigu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam markaa fadligaas ayay leeyihiin markaa tobankan ugu horreeya ee dilxija in laga faa'iidaysto oo laga qanimaysto weeye waa mawsim aad iyo aad markaa qaali u ah oo la rabo qofkii inuu ka qaniimaysto ood ka faa'iidaysataa laga rabaa aquulu qawli hada wa astaghfiru allah li wa lakum fastaghfiruuh الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين
ولا ليال وحياله إله سبحانه وتعالى أدومي سوجد يوحى كمذا أيامها صومك إلا الصوم على جاي وقف دون استلادون يعني وحوي ينفض جاي مقرن السوالات جو مركا وكو مارته وأركو إنه مركا ولي ينقفك حاج جاي حشك سوق ذنايا ما يا سلا ما عرف إلهي سبحانه وتعالى حكمة ديسة وحوسة ما يقفك عن حجين كرنا مركا حجك أنا بوضينين إن عندنا فضلك حجاجته إلى هايين ولو ذاقه فضلك إليهين يوناك إليهين إنه مركا ولو ذاقه كهل كان اسكت شوقة ودن كيس الجوقة باوحوا يروح ولو ذاقه يا فضلك يا مقرن الصادق إلهي كحجك إلهي قدني يا يلو ذاقه يا أضو إلى الاستراضة معها حاج متيد وفضل مليد وحج مقدني سيد ووحوا النفس هذه ليست معها بل وحى الله قرب هذه العمل كوناجسو وعمل كصالح مركز كدلاشو رب سبحانه وتعالى وحياله وجد يا دوميس وحى كمية أيامها صيام هذه الأيام إما المان يقال مركز الله صومه قفكي كرا يا مركز إنه صومه مركز الله قرب مالنت التبنات مالنت التبنات صوم كذير وممنوع ولما صومي كروا مالين عيدوي maalintaasina waxa loo yaqaan yawm an-nahr balada waxyaalaha marka adoomaha loo jideeyay ee Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu jideeyay waxa kamida al-iktharu min dhikri Ilaahi subhanahu wa ta'ala illa badiyo dhikriga Ilaahi la badiyo dhikriga Ilaahi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim nabiga muxuu alayhi salatu wa salam kalimatan ibn marka khafifatan ala al-lisan ثقيلتان يعني مالت في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أو كما قال عليه الصلاة والسلام نبي قعد عليه الصلاة والسلام لبا كلمة وهو حويا عربك كفض ميزانك كعلص إلهينا وقدش عليهي وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كعل علي انت ذكرك مشروعة كعل سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم إن ترى الله أكبر والحمد لله سبحان الله ذكرك إلهي قرآن أخرس كينا بضيسو قرآن كيا كميد ذكرك إلهي سبحانه وتعالى قرآن كينا الأخرضه انت إلهي وكبري أو تقانو إنا الأخرضه وأي عملك صالح يكميد هاي ونقول بالله يا مركا waxa kamida waxyaalaha Ilaahay uu jideeyay al-dhikr al-ikthar min dhikri Ilaahi subhanahu wa ta'ala dhikriga Ilaahay in la badiyo la siyama yaana takbiirta qofkiinu takbiirta u badiyo maalinta ayada rabbi subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay wayadhkuru isma Allah fi ayamin ma'lumat rabbiga la xuseen ayaam ma'lumat oo la garanaayo ayaamahaas waa maxay ayaamaha waxay ku fasiraan culimadu وهي أيام العشر وأيام العشر وطبعاً كأبوه الرئيس ذي الحجة طبعاً كأبوه الرئيس ذي الحجة ربي وحولي الذكر يجهب ذيين الضومها يقول ذكر يجهب ذيين أيامها معلوماتك وطبعاً معلومات سيدا سوكا لمركا جمهور العلماء وحي كفسرين أيام معلومات وحوين جماهير تأكتوا وحوين واي أيام العشر ومالنت طمحان كرهي طبعاً كأبوه الرئيس ذي الحجة وأما أيام المعدودات القرآن كلا يقول نقول شيء هي أيام التشريق وأيام التشريق أيام التشريق نوع عليها مالنت طمنا صدح لما الماضي كدم بيه أيام التشريق لهذا مالنت طمنا ذي عيدة صدح لما الماضي كدم بيه أيام التشريق حتى سيدا اللي فيلا يعيد وحي نقونسا جمعان ما أنت جمعيه سادو إلهي نقارسيه سبحانه وتعالى جمعها وحي كدن بيا وصبتي يا حظي سنين أيام التشريق لو يقانا أيام التشريق وكواس مركا أيامها سبحا لو يقانا ربي سبحانه وتعالى سودا ونوشيغي أيام المعدودات حتى أيامها يقا وحا مركا مستحضة الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى ذكر إله إلا بضيو في هذه العشر مبارك
طبعا كم بركيسان إن عمرك محاكرة ذي ذكرك لبديو ذكرك محاكمة من التهليل باكمة إن أضبرس التوحيد كإلهي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ذكرك إلى محاكرة ذي التوحيد كإلهي إلى أضبرسه والتكبير تكبير تين أضبرسه والتحميد الحمد لله إن مركا أضبرسه محيا لي وعلى يا باقفكم مركا إنه حشكي وجدن كروايو حشكي ومركا وأبودي وايو ومركا يعني ونهي سليم بحشكي وحو كتلو لكن يو أبودي وايا إنه يلادو الحمد لله لا إله إلا الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أنت وكريان أنت وذكريسا أنت مركا وحال قرب هذه إن أتكوع العليسو إن أتكوع العليسا يا الله قرب سأتردد وحويا أيامها وحا كجر ولا ليمالين هذه هذا فضل بدن oo loo yaqaan marka ma la yiraahdo yawm arafa waa maalinta sagaalaad ee xujaajtu ay taagan yihiin arafa maalinta ayada ayaa ku jirta tobankan maalmada dhilxija ugu horeeya waxa ku jira ayaan maalin loo yaqaano yawm arafa oo maalinta maalinta sagaalaad maalinta ayada ayaa ku jirta nabigeena alayhi salatu wassalaam waxa marka warinaya ibn hibban fi sahihi من حديث جابر نبي يقول عليه الصلاة والسلام أفضل الأيام يوم عرفة ما وحى وفضل بدن ما انت عرفة وفضل بدن النبي عليه الصلاة والسلام ساد رد النبي يقول عليه الصلاة والسلام يعني وحى ويان يعني الدعاء إذا ما انت قفك إلهي وبريه لما علي ولا أقبل النبي عليه الصلاة والسلام ساد رد النبي يقول waxa ugu fadli badan ayaamaha yawm arafa maalmaha waxa ugu fadli badan maalinta arafa waxa soo arooray oo nabiga ka sugan calayhi salaatu wasalaam soomkan la soomo maalinta arafa soomkeeda in ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku dhaafo sanadii tagtay iyo sanada soo socota in ilaahay subhanahu wa ta'ala qofka doonka kaga dhaafiyo dunuubta wa yawm arafa waxa sugan oo nabiga ka sugan calayhi salaatu wasalaam soomkeeda doonku soo maalinta ayada uu soomo waxa lagaga dhaafayaa sanadii soo dhaaftay sanada soo socda dunuubtooda baa lagaga dhaafayaa fadligaas maalinta ayada ay leedahay wakadalika waxa weeyaan saas daraadad wuxuu wariyay marka Abu Qatada waxa uu ka warinayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam nabiga waxa la weydiiyay su'ila rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam an sawm yawm arafa bal ka waran bari nabi maxamedow maalinta arafa soomkeeda bal ka waran bari nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam markaas nabigu wuxuu yiri yukaffiru sanata al-maadiya wal-baaqiya waxa lagu dhaafaa buuri soomkeeda sanadii tagtay sanada soo socota xadiiska imaam muslim soo saaray wakadalika waxa warinaya ibn hibban من حديث عن جابر نبي عليه الصلاة والسلام وحري ما من أيام أفضل عند الله من يوم عرفة ينزل الله إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض نبي وحري عليه الصلاة والسلام مجرب لمال يعني وحويا كفض لبضن إلهي أكتيس يوم عرفة محايا لصومت محايتاي ينزل الله إلهي ما مالنت أيضا سودقايا إلهي السماء أيوك سودقايا وحوك سودقايا حقا يعني حق السر أيوك سودقايا وحوك سودقايا إلى السماء الدنيا سبدا دو إلهي سبحانه وتعالى وسودقايا مركز وحويا الملائكة سمد جوكته أيو إلهي سبحانه وتعالى ومفانيا الدوميهيسا كصومن يكحشك قدنايا أي رب وحلي بلا ضوماي فيريا سيدي أضيعين سيدي عابديان سيدي أمر كي وقاتين بلا ضفيريا ملائكة إلهي وفانيا سبحانه وتعالى ملائكتي سيوفانيا يا رب تبارك وتعالى انتو السماء والدنيا وسودقوا ما انت أسفل لك سيلي ما لنو كبد ليس يا شيطان ما جرتو وما انت وجد ليس يا شيطان وهو حوي مالنتا مالين كغا ما جرت شيطانك واي وحو اركي ان حريستي لا سو دغيس ادومي لا لو دنب دافايو ايو اركيا الا وا حاسدكاغي وا عدوغاغي ويه marka ma jeclo inaad naxariista ilaahay hesho dambi dhaafka ilaahay hesho ma jeclo saadaradeed waa dulaysan ya shaytaan maalinta ayada اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين اعداءك اعداء يا رب العالمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمه انك انت الوهاب عباد الله قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله